ciidamadan cusub oo lagu xoojinayo howlgalka xasilinta iyo xakamaynta hubka ee caasimadda ayaa maanta lagu soo bandhigay xarunta ciidankaasi si loo dardargeliyo howlgalka lagu xasilinayo amniga magaalada Muqdisho. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa ugu tagay booqasho dhiirigelinaya mahadcelin la xiriirta howlihii wanaagsan ay soo qabteen ciidanka xasilinta amniga Muqdisho, waxaana ku weeliyay wasiirka amniga, wasiirka gaashaandhigga, xildhibaano iyo taliyaha ciidanka NISA iyagoo kulan gaar ah la qaatay ciidanka ammaanka. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo la hadlay ciidanka ayaa tilmaamay in ciidanku ay qabteen bilihii la soo dhaafay howl wanaagsan isla markaana looga baahan yahay inay laban howlgalka lagu xasilinayo ammaanka guud ee dalka gaar ahaan caasimadda Soomaaliya. Shaqooyinkii aad soo qabateen magaalada Muqdisho iyo dalkaba way ka muuqataa. dadaalkiinni dad Soomaaliyeed ku badbaaday, dadaalkiinna horumar u keenay, dadaalkiinni dawladnimo muujiyay, dadaalkiinna horumar u dhaliyay. waxaan aad marka idinkaga mahadcelinayaa anigoo og duruufaha adag oo aad ku shaqaysaan, anigoo og inaadan haysanin agabka aad u baahneedeen oo dhammaystiran, anigoo og inta hadda aad heshaan ka badan inaad mudantihiin, ayaan waxaan idinkaga mahadcelinayaa sida sharafta leh oo dalkiina iyo qarankiina uga adeegteen. cadowga magaalada ka nadiifiseen intiisa badan iyo inaad haddeertaan diyaar u tihiin inaad shaqadiinna sii dardar gelisiin. rajada ummadda Soomaaliyeed ay leedahay idinka waa ummadda Soomaaliyeed cidda ay sugayso inay sharafteeda iyo karaamadeeda soo celiso idinka waa. magaalada Muqdisho waa laga dareemay amniga ka shaqaysaan. tusaale marka waxay ka tahay inta dhimanna inaad dhammaystiri kartiin haddaad dadaashiin, is-aamintiin, qalbigiinna iyo walaalnimo ku wada shaqaysiin. qarannimada cidda keliya matalaysa idinka inaad tihiin inaad og tihiin, sababtoo ah ciidanka ayaa qarannimada ilaaliya. si marka dalku u gaaro horumarka aan higsanayn, si dalku u tago meesha aan rabno, si walaalihiin idinka yaryar iyo waalidkiin magaaladan iyo Soomaaliya meelo badan ka degan oo kala duwan ay nabad ugu noolaadaan. cidda la rabo nabadda lagu seexana inay keento idinka waa. cidda rajada Soomaaliyeed gacanteeda ay ku jirto idinka waa. dhinaca kale Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa isla maanta kormeer shaqo ku tagay taliska ciidanka xoogga dalka ee Villa Baydhabo si ugu kuurgalo baahida ay qabaan ciidanka militariga, isagoo kormeeray qaybaha ay ka kooban tahay xaruntaasi. Nasr Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.